kulankan oo magaalada Muqdisho uga socday guud ahaan culimaawidiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca muddo isbuuca ayaa maanta lagu soo xiray magaalada Muqdisho waxaana looga hadlayay colaadaha ka soo cusboonaaday maamulka Galmudug gaar ahaan magaalada Guriceel. kulankan oo ay ka qayb galeen guud ahaan culimaawidiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee ku sugan magaalada Muqdisho gobolada dalka iyo dibadda waxaa baaq nabadeed loogu diray dhinacyada isku haya magaalada Guriceel. culimaawidiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee kulankan uu socday muddada isbuuca ayaa waxay soo saareen war saxaafadeed ka kooban dhowr qodob waxaana warbaahinta u akhriyay Daahir Axmed Salaad. culimaawidiinka markay arkeen barakaca saameynta weyn ee ka dhacay magaalada Guriceel, markay arkeen in dawladdu ku daabulayso ciidamadii qaranka magaalada Guriceel si ay ula dagaalamaan culimaawidiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca, markay arkeen in dhagaha laga furaysta dhammaan baaqyadii nabadeed lana xirxiray nabadoonnadii ku baaqay nabadda, markay arkeen in ciidamadii furimaha cadawga ku hor joogay loo daabulayo si loogula dagaalamo culimaawidiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca, markay arkeen fadwooyinka isdaba joogga oo lagu banaysanayo dhiigga culimaawidiinka Ahlus Sunna wal Jamaaca soona saarayaan madaxda wahaabiyada ee kuwooda xabsiga ku jira iyo kuwooda dibadda jooga, waxay culimadu isla qaateen in dagaalka Guriceel uu yahay mid caqiido kuna salaysan caqiido laguna baabi'inayo dalka, waxayna soo saareen baaqan kow in aan dalka la gelin dagaal caqiido kaasoo hadduu bilowdo aan la ogeyn meesha uu ku dhammaan doono, dibna loo soo celiyo dhammaan ciidamada la dulgeeyay magaalada Guriceel. labo in la ogolaado wadahadal shuruud la'aan ah, dhammaan waxa la isku khilaafsan yahana lagu dhammeeyo miiska dushiisa. saddex in dadka barakacay la siiyo kalsooni ay guryahooda ugu soo laabtaan loona fidiyo gargaar bini'aadamnimo. afar in xabsiga laga sii daayo dhammaan odayaashii ku baaqay nabadda lana joojiyo caburinta lagu hayo dadaalada nabadeed. shan ugu dambayn culimaawidiinka waxay iska dhex doorteen guddi ka shaqeeya nabadaynta Galmudug, waxayna ka codsanayaan dhammaan dhinacyada isku haya Galmudug sida dawladda dhexe, dawlad goboleedka Galmudug, hoggaanka Ahlus Sunna wal Jamaaca ee gobolada dhexe in ay si buuxda ula shaqeeyaan guddigaas nabadana ay qaataan. sidoo kale waxaa kulanka ka hadlay Sheekh Cabdirasaaq Sheekh Aadan Dheere, Sheekh Cabdikariin Sheekh Ibraahim Cali iyo Shariif Cabdulqaadir Shariif Cali kuwaas oo dhammaan ku baaqay in xaaladda magaalada Guriceel iyo guud ahaan maamulka Galmudug lagu dhameeyo wada hadal isla markaana dawladdu ay ka soo celisay ciidamada halkaasi ay geysay. dhammaan Ahlus Sunna wal Jamaaca meeshan way joogaan ashraaftii culimaawidiinkii raggii fuqahada kulli way joogaan. waxaa lagu baaqay dhammaan culimadu waxay ku baaqday in nabad la qaato, nabadda la adkeeyo, si degdegna loo qaato insha Allah. saas ayaan rajaynaynaa in hadalkeena ay loo dhagalnuglaadaan rajaynaynaa insha Allah. waxaanu ayidaynaa oo adkaynaynaa baaqaas ay culimadu ay soo saareen Ahlus Sunna wal Jamaaca in la qaato oo duruufta haatan lala hadlayaa ay sida ugu degdega badan ay u qaataan. Assalaamu calaykum. nabaddaas lagu baaqay oo maanta la soo jeediyey inay wada qaataan aniga waxaan adkaynaynaa haddaan nahay ashraafta in nabaddaas la wada qaato labada meelba si degdeg ah lagu qaato. wabillahi tawfiiq. wassalaamu calaykum warahmatullahi. Sadi Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho.